waxaan u arkaa run ahaantii inay tahay ma aragtay nasri ilaahay u keenay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ma aragtay dadka reer Muqdisho waana runtii arrin wanaagsan oo ma aragtay dadkuna ay ma aragtay ku nasteexeen mar haddii ay ma aragtay wax isbedeleen oo airportkii la furay oo dekedii la furay isbedelku wuu fiican yahay horta sidii wax u dhacayna waa si fiican kulli ay way sameeyeen laakiin ummaleen maayo ma aragtay dariiqada ay hadda ay rabaan ama sida ay ku socdaan ama dadkii loo baahnaa inay yihiin ummaleen maayo guud ahaanta wax badan kama sheegi karo sababtoo ah intay hadda maxaakiimta haystaan muddada wali waa gaaban tahay waxyaabo badan oo loo baahan yahay in loo gudbo ama aad qiyaasi kartid markaas qof weyn haddaad tahay siday kula muuqdaan weli ma aanan gaarin stagekaas sababtoo ah weli waa ay igu cusub yihiin annaga keliya naguma cusbee macnaha inay bal xukun magaalada Muqdisho lagu soo celiyo runtii shaqo badan ayay u baahan tahay marka guud ahaan anigu waxaan u arkaa impressionkaas ugu horeysa oo ummadii siday ugu farxeen siday magaaladooda u mari karaan in ay tahay step iyo horumar la gaaray midda kalena hadda waxay ku xiran tahay sida loo horumariyo ama sida ay developmentiga ay u sameeyaan ay ku xiran tahay maxaakiimta iyo ummadda kale intii wax la qaybsanaysa isbedelku waxyaabaha ka soo baxay oo natiijadahay waa kuwo lagu diirsado fiican waxaanse ka baqayaa inaysan sii socodkoodu aysan noqonin sida wadada la rabo inay ku socdaan hadda waqtigan lagu jiro iyo sida xaaladdu u socoto iyo wadada ay ku socdaan ima muuqato aniga qof ahaan wallahi dawladda markii hore sida loo doortay waxay ahayd si aad iyo aad u fiican waxaan laga filayay maartay mowqifkan hadda ay joogto inay ka fiicnaato laakiin wixii laga filayay ama sabab waxa laga sugayo iminka ummaleen ma inay yihiin wax Soomaaliya ay maartay ku qanci karto runtii dawladda muddadii iyada ruuxeeda mudday soo jeetantay waxaana keenay bakeeri hadduu uu maaragtay dhaco halgees ka jabo dhib male hadda waxaa lasoo saaray caalamka koola yaroo lagu dhejin karo dhinacaas laakiin haddii bakeerigu dhulka ku dhaco oo uu noqdo fractions yar dhibkeeday leedahay marka dawladdaas hadda la sameeyey ruuxeeda dhibaatooyinka ama obstacleska haysta oo kamid ah waxyaabihii ay qaban lahayn ama ummadda ka sugaysay iyaga kaliya anigu shamsi ahaan ma saari karo inay maaragtay ama shaqayn waayeen ama ay noocii rabtaa u noqotee laakiin ummadda Soomaaliyeed dhan ayay wada saaran tahay ama dhibka la wada saameeya ama ha noqdaan dadkii wax ka soo saxiixay oo ka baxay ama ha noqdo kuwa hadda wada oo siyaasadda ku wadi waayeen aniguna dawladda ku meel gaarka ah runtii ilaa maalintii la asaasay ilaa hadda caqabo kala duwan baa ka hor yimid qaar way ka yara tilaafsatay qaar weli kama tilaafsan mid kaliya oo ah aqoon socodka u socoto oo uusan ku jirin xoog wax ku muquuninta runtii waxaan qabaa inay tahay wax loo bogay hadday aqoon socodnimadaas iyo iyadoon ka daalin rajadana dhigin ay sii wado dawladaha gobolka igad muxuu ahay ururka midnimada Afrika jaamacadda Carabta qaramada midoobay dawladaha kale Soomaaliya danaynayana ay garabsato waxaan filayaa inay waxun natiijo laga gaari doono ay dhalin doonto maya uma baahna Soomaaliya ha way u baahantay maya ha idaba shay waxaan loogu baahnayn mar loo baahnaa way jirtay mar maaragtay fawda iyo kala dambeyn la'aan iyo dhibaatooyin badan ay ka jireen dalka meel walba gaar ahaan magaalada Muqdisho ugu weynaatay laakiin hadda oo magaaladii ugu darneed macnaha ugu weyneed Soomaaliya ay ka fiican tahay sidii hore ammaankeedu ka wanaagsan yahay marka ima muuqata sabab macnaha hadda loo keenay ciidamo shisheeye
soomaaliya aydii baan heshiinayn oo maanta ninka loo tagay la yidhaahdo war hubka iska dhig ma dhigayo hubka marka waxaa loo baahan yahay dowlad ajanabi ah inay yimaadaan oy hubka ka dhigaan wax kaloo kale looga baahan yahay ma jirto soomaaliya inay heshiisiyaan loogama baahna soomaaliya inay wax ka qabtaan loogama baahna waxa keliya looga baahan yahay sidaan u malaynayo waxay tahay inay hubka ka dhigaan keliya ciidamada shisheeye siduu cid walba u fasiratay ay ku xiran tahay haddaanu aragno dad annagana dhexdhexaadinayo oo aan qoryo dambe noo maarata ummadda isugu dhiibeyn ama u qaadanaynin waa haa ayaan dhahi lahaa sababtoo ah ummaddii 15 sano 16 sano ayay ku socdaan ay is aamini laayihiin maalin walba shaati hala gashto ama cabdimaalig ha qabto ama cali ha qabtee laakiin inay iyagii is aamini laayihiin marmarka qaarkood waa ay sahashaa inay cid saddexaad oo neutraalka ah in ay xalka keeni karto waa hadday neutral yihiin haddii sida ummadda inta badan ay ka dhawaajinayaan ama cabsidoodu tahay inay wadamada dariska oo kaleeto ay ka qayb qaadanayaan inay weli nagu sii mashquulsanaadaan ama qoryaheeni ay dabkii sii huriyaan taasna waxaan dhihi lahaa waa maya umaynan baahnin marka anigu labadaba waqti xaadir tensionaa jira oo laleeyahay ummadda ay leeyihiin annagaa isku filan bal haddaan isku filaan karno 16 sano nagu soo qaadatee hala siiyo waqti oo ay annagu aan isku filaano ciidan shisheeyana waa ka maarmaynaa weli soomaalidu kalsooni daradii dhexdeeda ahay oo abuurantay 16 sano dagaalka sokeeye iyo intii ka horeysay oo aan oran karo ilaa 88 xataa dowladii militariga ahayd markay dhacday ka bacdi kalsooni xumi baa soomaalida baa ka dhex dhashay marka waa qabaa qolo saddexaad oo xataa marka hub uruuriska la yiraahdo hubka qabaa'ilada maleeshiyooyinkooda laga qaado gacan saddexaad oo dhexdhexaad loo dhiibo inay jirto sida macnaha muqdisho markii ay ka bilowdeen meelihii ay ka bilowdeen inay marba meel u gudbaayeen ilaa maaragtay gobollada ku dhegan ilaa maaragtay hore u socdeen taana waxaa keenaya maaragtay ummadda Soomaaliyeed mar walba meeshii macnaha wanaag uu ka dhasho way rabaan ayagu wanaag inuu soo gaaro marka dadka iyagaaba doonaya maaragtay in macnaha maaragtay ay qaataan nidaamka islaamiga ah iyagana soo dhaweynaya taas sabab karta in macnaha gaaraan gobollada kale Soomaaliya waa wadan muslim weeyaan sidiisaba sidii berigii hore sida lagu sheegi jiray waxay muslim 100% inay muslim ahaayeen marka maxkamadaha haddii ay leeyihiin anaku diin baanu faafinaynaa oo ujeedadu ay tahay diin baanu faafinaynaa waxaan u maleynayaa looma baahna wallaahi haddii ummaddu ay iyadu ummad walba waxaa muhiim ah inay ummadda ka imaato inay diyaar u yihiin inay sidaas maxaakiimtu halkan magaalada xamar nabadgelyo xumaa ka jirtay dhibaataa ka jirtay waana ay xasliyeen waa wax step horumar ah ay gaarsiiyeen laakiin dhinaca kale meelaha nabadgelyadu ka jirto nabadgelyo waaba ay jirtaa haddii ay sidai ay maxaakiimtu u qaabili lahaayeen ama maxaakiimtu ay xukunkaas u qaban lahaayeen hadda waxay u taallaa dadka markaas magaaladaas jooga hadda iyagu faafiddu ma xumo wax laysku ogyahay oo nidaam laysku ogyahay inuu faafo laakiin nidaam ilaa haddeer ba aan itijaah cad lahayn ma qabo meelaha maamuladu ka jiraan inuu haddeer khalkhal geliyo mustaqbalka Soomaaliya run ahaantii ilaahay rajadiisa lagama qusto laakiin aniga waxay la tahay in macnaha wanaag iyo maaragtay khayr barwaaqo inoo dambeyn doonto insha Allah taala maadaama aan hal ummad nahay muslim nahay isku af nahay inaan isfahmi doono haddii ilaahay yiraahdo insha Allah والله waxaan aniga waxa ila muuqdaa 16 iminka aan soo dhaafinay in ka badan inaan sugayno sababtoo hadda ma hogaamiyinta ma hadda abaha noqdaan kuwa wadaadada ha noqdaano ama sabab dawladda ha noqoto yani in siday wax u wadaan ama siday siyaasadooda ay tahay ma aha dad wax laga filayo ama dad wax laga sugay ma ilaa waxaan oo idin is wada bedelaan wixina waxay qaadanayaan waqti bay qaadanayaan Allahu ya'lam kama quusan anigu mustaqbalka Soomaaliya waxaan u arkaa inuu yahay mustaqbal bright ah ama cad ama runtii qurux badan haday ummaddu u tafsiirato wixii ay soo martay dhibkii ay soo martay in ilaahay intuu ka badbaadiyo ay u noqdaan bal inay nabaddu ay muhiim tahay waxa la gaarayaa ama Soomaaliya mustaqbalkeedu wuxuu yahay wax runtii aad u qurux badan aad ba walwal badan uga qabaa runtii
waxaan qabaa maanta waddanku wuxuu marayaa marxalad labada dhinac bay ka suurtooda in soomaaliya midnimadeedii qarannimadii soo ceshato iyo meeshaynu maraynay iyo meel ka xun inay gaarto marka walwalkaygu runtii waa badan yahay